Soo dhawaada muuqaalka waxaan idinku tusi doonaa qaabka loogu shubto kombiyuutarkaaga Python adigoo adeegsanaya code editor-ka loo yaqaano Visual Studio Code. Soo gal kombiyuutarkaaga Google Chrome, soo gal waxaad qoraysaa Python download. Waxaa kusoo baxay website-ka caanka Python ee ugu koreeya ku dhufo. Markaa ku dhufatid website-kan waa website-ka Python official-ka ah. Download button kasi dooro kadib waxaa kasi doorata xagga hoose oo download 3.4 version-kan dooro kan koraha dooran kan hoose dooro. Halkan markaa ku dhufatid waxaa kuu degaya Python-ki ayaa kuu degaya isagoo intuu kaaga dhamaanayo. Mar kale Google ku qor Visual Studio Code download website-kaas caanka ee official-ka VS Code ku dhufo kadib markaa soo gashid waxaa la degaynaa VS Code-ka code editor-ka la degaynaa waxaa dooranayna window download hadaa isticmaalaysa Linux dooro hadaa dooraysa Mac dooro ani hadda window ayaa doortay kadib markaa uu ii degayaa asagana intuu iga dhamaanayo ayaa sugaya. Hadda way soo degeen markaa waxaa galaya gudaha kombiyuutarkayga waxaan install gareynayaa Python laba jeer ku dhufo Python application-ka soo degsatay kadib halkan dooro meeshaas ha ilaawin meeshaas hore add path kadib install dheh kadib markaa waxaan sugaynaa inta uu ku dhameynayo installation-keena. Hadda wuu noo dhameeyay waqti yar ay qaadanaysaa cabaar baa boobsiiyay kadib markaas halkaas ayuu kuu soo keenayaa inuu kugu shubmay Python-ki. Mar kale haddana waxaan tijaabinaynaa Python inuu noogu shaqeynayo CMD-ga soo gal CMD-ga ayaan ka tijaabinaynaa Python inuu si sax noogu shubmay. Halkaas waxaan ku qoraynaa Python ayaan qoraynaa kadib enter ayaan leenahay haddii uu si sax noogu shubmay waa kaasaas uu noo soo qoray haddii se noogu jirin wuxuu leeyahay kuuma jira marka hadda Python-ka waa ku shubanay version-kiisana waa kaas waa tijaabinaynaa hadda 5+ ayaa leenahay 5+5 kadib waxaa noo soo baxay result-igi 10 marka Python si sax ayuu noogu shubmay kombiyuutarkeena halkaas ayaa ka tijaabin kartaa. Okay haddana waxaan ku shubanaynaa Visual Studio Code double click dheh haddana mar labaad kusoo laabanay meesheeni double click dheh markaa Visual Studio Code editor-ka ayaa ku shubaynaa halka markuuna keeno waxaan dooranayaa meeshaas kore ayaa tigta saaraynaa kadib waxaa leenahay next ayaa leenahay next markaa dhahno next ayaa sii leenahay haddana next ayaa sii dhahaynaa kadib markaas ugu dambeyso halkan iska checking kare inay labadaas tig ay kuu saaran tahay haddii se kuu saarnaa dhibiclada ku qabsanayso kadib install ayaa leenahay markaa waxaa sugaynaa inta uu nagu shubmaayo Visual Studio Code-keena wax yar ayay qaadanaysaa markaa videoga ayay boobsiin doonaa insha Allah. Hadda wax yar ayaa noo dhiman marka inuu nagu shubmo hadda waxaan ku shubanay Visual Studio Code-keeni ayuu noo dhameeyay halkan ay markuu ku keeno waxaa si sax ugu shubmay Visual Studio Code markaa finish ayaan dhahaynaa si aan usoo kicino Visual Studio Code-keena finish dhe markaa finish markaa dhahno halkan ayuu keeni doonaa waxaa noo soo kici doonaa software-keeni Visual Studio Code-ka ayaa noo soo kacay wax yar ma sugaynaa hadda wuu noo soo daarmay halkan ayuuna keenay markuu halkan keeno si sax ayuu Visual Studio Code-keeni aan ugu shubanay. Marka waxaa setup gareynaynaa inaan Python aan ku shubano Visual Studio Code-keena inuu Python ugu shaqeeyo halkaas waxaa imaanaysaa extension ayaa lahaa waxaa kusoo darsanaynaa search waxaa ku qoraynaa Python ayaa ku qoraynaa si uu iskula kii xirmo Python-keena iyo code editor-ka Visual Studio Code halkaas degsa marka Python-kan install dhe markaa install markaa dhahayd extension-kan uu ku dhameeyo sidaan oo kale ayuu ku noqon doonaa markuu ku dhamaystirmo internet ayuu u baahan yahay marka installation sameynayso. Markan hadda waxaan kusoo laabanaa extension waxaan kusoo darsanaynaa wax loo yaqaano material icon fileska iyo folderada si icon qurux badan noogu noqdo waxaan ku darsanaynaa icon kan ayaa search ku qoraynaa material icon ayaan ku dhufanaynaa Teams-kan wuxuu naga caawinayaa marka in icons ay noo yeeshaan code-keena marka intuu noo asagana waxaa leenahay install ayaa leenahay install markaa dhahno si sax ayuu noogu shubin doonaa. Inta markuu soo dhamaado hadda waxaan bilaabaynaa project-geena yar ayaan sameynaa oo tijaabinayna qaabka uu shaqeynayo markaa desktop-ka ayaa ku sameysanaynaa folder cusub oo project folder waxaan u baxsanaynaa test ayaa u baxsanaynaa test ayaa iskaga qoraynaa magaca rabta u baxsan kartaa folderkaas ayaa project Python ku sameynaynaa kadib waxaan soo kicinaynaa barnaamijkeena Visual Studio Code-ka ayaan soo daaraynaa si marka folderkaas aan ugu abuurno project tijaabo marka application-keena oo noo soo kaco wax yar ayaan sugaynaa intuu soo daarmaayo kadib waxaa imaanaynaa meeshan ku qoran tahay file ayaa meeshaas imaanaynaa open folder ayaa dooraynaa folder-keeni ayaa soo furan halkaas ka xir open folder ayaa dooraynaa si aan marka folder-ka soo sameysana desktop-ka ayaan ku sameeyay kadib waa kaas test folder double click c kadibna select dooro kadib markaa dooratay hadda folder-keeni waa soo sameysanay kadib marka waxaa sameynaynaa inaan tijaabino program-keena halkaas waxaa kusoo darsanaynaa file oo la bixi doono app.py waxaan qoraynaa app.py ayaan qoraynaa markaas magaca rabta u bixi kartaa laakiin aniga kana ula baxay laakiin waxaa qasbayna .py u dambeyso
kadib waxaan qoraynaa marka code yar oo tijaaba print ayaa leenahay kadibna waxaan leenahay bracket ayaa furanaa print function ayaa la dhahaa kadib waxaan leenahay quotationka waxaan ku dhex qoraynaa hello Axmed magaca rabta ku dhex qori kartaa muhiim waa laakiin tijaabo waaye kadib waa save garaynaynaa marka iska hubi labadii barnaamij ee haday install garaysan oo ah Python iyo Python ayaa muhiimsan kan kale laakiin muhiim ma laakiin kan kale wuxuu ku qurxinayaa icons inuu meeshaas kugu yeelo marka kadib waa ran garaynaa view imaw terminalkas ama shortcut control packet ayaa taaban kartaa marka meeshaas click si marka si aan ugu furno terminalka marka furno waxaan qoraynaa marka sa u ran garayna filekan Python waxaan qoraynaa Python ayaa marka u yeeranaynaa Python markaan aan space ayaa leenahay kadib app.py ayuu fileka aan rabno inaan ran garayno magaciisa ayaan qoraynaa kadib hadaba noo soo ran garay oo code-kan si sax ah u shaqeynaya marka sidaas ayaa loo install garayaa Visual Studio Code iyo sidoo kale Python aad u mahadsantiin